إن حافظنا واحد تاريخ آدي هذا فعوين كل هذا هي dadkii ama carabta ahaa ama Soomaalida ahaa muddo ka badan 100 sanadood ka hor u soo haajiray wadankan Hindiya tafiirtoodii ayaa xaafadan aad si weyn ugu arkaysaa iyadoo raadkii taariikhdana ay wax ka sii jiraan oo tusaale ahaan Yamanidoo kale ama Soomaalida dadka tafiirtooda ay tahay ay macawusi xidhan yihiin luqadihii ayaa aad iyo aad ay isugu liitaan laakiin dadka intooda waaweyn ayaa taariikhdii wax ka haya guriga nimankan galayo waxa ku nool nin la yiraahdo Xuseen Somali oo xaafadan aad caan uga ah wuxuu ii sheegay in tafiirtiisu ilaa 100 qof imika ay ka badan yihiin Xuseen awowgii ayaa waqti uu ku qiyaasayay ilaa 1890 yimi wadankan Hindiya Xuseen bal hadda dhaqankii Soomaalida wuxuu ka hayo ayaan ka wareysan doonaa iyo waxa uu ka yaqaano laakiin arinta kale cajiibkii waxa weeye in Xuseen uu noo kala turjumayo maadaama Soomaaligiisu waad yaad u liito nin isaga asalkiisu uu Hindi yahay asalkiisu markaan leeyahay Hindi yahay aabihii waa Hindi Shakiib Cabdi Jabbaar baa la yiraahdaa aabaha iyo aabihii bank Hargeysa ka wada shaqeyn jireen Shakiib hooyadiina waa Yamaniyad Shakiib ilaa dugsiga sare waxa uu ku dhameystay magaalada Hargeysa dabadeedna wuxuu isku tilmaamay isagu inuu Soomaali yahay Shakiib baa noo kala turjumaya bal hadda Xuseen waxa taariikhdii uu ka hayaan eegno waa guriga Xuseen uu degan yahay bal hadda Xuseen baan arrimaha aan idin sheegay kala sheekaysanayna السلام عليكم حسين سكورن سمو wanaagsaneed حسين aniga Cabdisalaam Herri baa la yiraahdaa television universal la yiraahdaa ayaan ka shaqeeyaa af Soomaaliga ma taqaanaa ninkan waa ninkan idin sheegay Shakiib Cabdi Jabbaar walaal Shakiib iska waran soo wanaagsanay khayr weey sheekadeenna iska bilaabanaa fadhiisana guriga waxa degan Xuseen iyo qoyskiisa qaar kamida Xuseen waxaad ku tahay Shakiibow aad iyo aad baad u mahadsan tahay in gurigaaga aad nagu marti qaaday आपको बोलते बहुत बहुत शुक्रिया आपके घर में हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया और चाय पिला दिया और ये भी खाना भी है तो खुले ये है उनतन हो गए तुम पैसा أدي أبغى ما تصنتينه बहुत बहुत शुक्रिया वह वे नोमा हाँ नगा वह उम्मीद नगम में दा आया था सोमालियत और नसोब हो गई af Soomaaliga Xuseen muxuu ka yaqaan horta magaciisu waa Xuseen Somali oo xaafadoo dhan uu caan kaga yahay af Soomaaliga muxuu ka yaqaanaa आपको बताएं आप मशहूर आदमी हैं पूरे दुनिया आपको जानती है नाम से लेकिन कोई नहीं जानती कौन है हुसैन सोमाली आप सोमाली लैंग्वेज से कहा जानता है सोमाली लैंग्वेज में कहा जानता है आप Skowran nabad wariya fadhiisu magciisa magaca inta uu sheegay ayuu ka yaqaan af Soomaaliga taariikhdii familygooda iyo goortii halka yimaadeen ha inooga sheekeeyo आपको मालूम है कुछ अब देश में जो आपके दादा यहाँ आया और 1965 में आया 1865 क्या आयु होगी सो गलाई waa 1865 ayuu ugu yimid हाँ वक्त का xaguu ka yimid किधर से आया दादा नूर अहमद मगन जो है तो बरबरा मुल्क सोमाल बरबरा gatiitaley ayuu ka soo jeedaa buu yidhi berberow ka soo dhoofay awowga maxaa la odhan jiray आपके दादा का नाम क्या था नूर अहमद मगन nuur axmed magan marka sababtu halkan u yimi maxay ahayd क्या सबब था तुम्हारा दादा को इधर आने के लिए इंडिया में यानी ब्रिटिश का दौर था जब और जो निजाम गवर्नमेंट था इधर यहाँ पे सब सोमाली यमनी सब आते थे जेश में थे हाँ كل هاوجي وضعها آرمي सोमाली दिगना वाकी ब्रिटिश का ताशा के लिए वाया हक बकरतुये है هاي dalbatay ciidamada ayuu ka mid ahaa meelaha kale ciidamadu ka yimaadeen waqtiga और किधर से दूसरा हम सोमालिया की तरफ से और किधर आए इधर यहाँ पर हाँ यहाँ पे मजरतन आए डुलबहंती आए थोड़े वर्संगली आए
और खबर जालू है, खबर जालू वहाँ पे भी है, इसी गार्ड में है. كل هاي ميلو كل دوون أو قبائل كل دوون بايمي ها حافظ كله نيجي بوي ولا دينتين من تشوفن عروض ولا شوكتا أون يجوا هدا أب سومالي جرنين أو قبيلة اللي جرنين هذا اسمه مقعبة هندي لكن حافظ لي ده دو أي سيجار واحد ده قال 100 كيلو يسمونه الصومالية قبائل كل شيء لكن dadkaas ay ka tirsanayeen ها majarteen warsangeli dhulbahante वसंगली भी आए थे और खबर जालो भी है, खबर चालो كل واحد صدوم وجي مادين لكن their grandfathers they pass away but this new generation they don't know about the tribes and that ones jiilasha cusub wuxuu yidhi dadkaas ay ka tageen iminka ma yaqaanaan halkay ka soo jeedaan laakiin intii waa weynayd ayuunbaa taqaana deedna awowga imise qofku ka tegay de आपके दादा जब इधर आया हाँ कितना छोड़ दिए चले गए इसको आप लोग को कितना आदमी लगता है आपको फैमिली से खानदान से ये हमारा जो है बाप था हसन बाकी सब मर गए थे हसन की औलाद हमें मोहम्मद अहमद हुसैन अहमद मर गया मोहम्मद है हुसैन दो है انت كتير اوغي imise qof يا waxaan hayn la shafar qof way sheegay मेरी औलाद ها يقول لي انا كنا دا اولادكaygu waxa weyn waa 8 boys and 3 girls waa 8 wiil iyo 3 gabdhood afid putra badri all makan anigu waxaga ku tiriyo waxaga makan ku tiriyo iyo inta intu dhalay iyo intii sii dhaleen ilaa waxaan nahay 45 qof putra badri ma sha Allah ma sha Allah waxaad ku tiraahdaa waxa la ii sheegay isagu inuu abtirsiimadiisa yaqaano का इनको बोले मिस्टर हुसैन मशहूर है और मशहूर से भी ज्यादा इसको आता है इसकी दादा की दादा की नाम वो हमको बता सकता है नौ शेख दे हुसैन हसन सईद नूर अहमद मगन समक्काब रोबले अबार उगाट उमर उमर अब्दुल्ला इस्माइल आर्रे सईद गरहजिद हबरनूर उगाट उमर रेर हारून अहमद ما شاء الله ما شاء الله وحي دو ودا هيا sidoo ku bartay de अब जब आपने यहाँ पैदा हो गया और इतने पूरे नाम कैसे मालूम पड़ा आपको हमारा बाप माय फादर हाँ aabahay ayaa nooga sheekeyn jiray oo noo sheegi jiray waxyaalaha isagu ma tagay de Soomaaliya आपने सोमालिया कभी भी किसी दिन गया सोमालिया नहीं गया ما تجي दो बच्चे गए थे मेरे لكن لما عروض جوا عبد الله يا أبو بكر أيه هرجيسة تجي وحنا يلد جاي المفلاح محمود डेरे से मिले वहाँ पे उगाड़ उमर शेख محمود डेरे उगाड़ उमर كانوا ويلكل من بولي उसका वाइफ बल्दिया में काम करता waxa la ii sheegay in hablihiisa qaarkood ay Soomaali ka guursatay वो क्या बोलते हैं मैं सुना आपकी बेटी लोग भी सोमाली से शादी हो गया सोमाली एक दो बच्चियां इसाक से करा एक अब्दियार जो लंदन में है लंदन का पासपोर्ट है उसका बरतानिया का और एक बिल्किस है वो जो है रबी फल्ला कनाडा में उससे एक बच्ची हमारी ये यमनी देती है صدح لي قبلود مدنا يمني باغبا مدنا ربيع فلاح باغبا مدنا لندن بيجن هاي عبدار عبدار صاحب برضه كده वो बोलते عبدار तुम्हारा बेटी का बड़े है मैं मेरा दोस्त है shkiwa waxa aad weydiisaa dawladda hoose doorashooyinku isu taagay axsaabtu ka tirsan yahay meel la doortay isaga marna जो इलेक्शन आती है आप हमेशा खेलते हैं इसके लिए क्या लोकल गवर्नमेंट है या कौन से पार्टी है स्टेट गवर्नमेंट waa state government waa okay maamulka gobolka yani television party chandrababu naidu waxa way inta aanay kala baxin Hyderabad waxa loo jiray Andhra Pradesh laakiin hadda way madax banaanaatay waxa la baxday Telangana state intaana Telangana state ayuu xukuumadda qayb ku lahaa cod ku lahaa laba jeerna wuu soo bandhigay laba jeerna kumunu guuleysan waxaad weydiisaa kale waxaa la ii sheegay in dadka asalkoodu Soomaalida yahay inay jiraan qaar kale oo meelo sare dawladda ka gaadhay वो क्या बोलते जितना आप लोग सोमाली में है यहाँ ये है और सोमाली लोग जैसा
कमिश्नर ऑफिस बन गए, बड़े बड़े ऑफिसर थे हैदराबाद में। एक जो है खबर अव्वल है साद मूसा, उसका कबीला है, वो जो है इब्राहिम, उसका मूसा इब्राहिम है, मूसा इब्राहिम वो जो है। दूसरा और एक भाई उसका जो है वो सईद इब्राहिम DCP है, पुलिस को नकदी मदह नकदी हैदराबाद। और दूसरा अहमद हसन फारा जो है वो रिटायर होगा, बुढ़ा होगा, अहमद वो भी DCP था। इसे को ना DCP पुलिस का, हाँ इसे को ना DC पुलिस का ये वहाँ। waxaad tiraa sidan uu isagu imika u yaqaano xuseen oo magaciisa xuseen Soomaali yahay, caruurtiisu ma u yaqaanaan halku ka soo jeedo? जैसा आपको आपके कबीला मालूम है, आपकी सोमाली का लैंड मालूम है, ये सब मालूम है, आपके बच्चों को इतना कहा मालूम है? हाँ मेरे बच्चों के बच्चों को पोतरों को मालूम। पोतरी जो है खुदन नाम है उसका, उसके लिए बुलबुल बोलती पूरे कबाइलों में। وكل عروت إذا كسكو عروت تسيد لهم أي سيا خان وعلا هي إنت تسيد الشيء أي دي بدها وقصة كسان ما بدن छोटी बच्ची है वहाँ वही नंबर कितने साल की है वो होंगे 11 साल 10 वाह खूब से बंशीर वैयान دي بدها هم تقول بعد أي عروت كلا وقفانتا أنا وحنا هاي so ما شاء الله ما تعلن لها إنه تجو गठितली आपको कोशिश आती है और जाने के लिए गठितली विजिटिंग के लिए सोमालिया इंशाल्लाह जाएंगे। हमारा मुल्क है क्या बात इंशाल्लाह waan ku tala jirnaa waayo waa meel aan ka soo tafarrucnay ilmaha yarna waxa la ii sheegay inuu awoow yahay oo inantiisu ay dhashay ये बच्चा आपके बेटे की है नहीं बेटे का है पुत्र inankiisa dhalay नाम बोलो क्या है नाम बोलो तुम्हारा नाम बोलो बेटा हाँ शुएब मूसा सोमाली शुएब मूसा सोमाली शुएब मूसा सोमाली शुएब मूसा सोमाली ما شاء الله ما شاء الله فريد شعيب موسى الصومالي isaguna garanaya uu garanaya qabiilkiisa jee uu dhigaa sidii isaga loogu dhigay ayuu isaguna बोलो शेख बनी साहब खबर यूनुस हारून अहमद हारून अहमद ما شاء الله ما شاء الله waxaan jeclay intaynaan sheekada ka bixin isagoo xuseen aad iyo aad u mahadsan bal hadda shakiib qudhiisa inaynu ka yara sheekaysiino. shakiib sidaan idiin sheegay aabbihii asliyan wuxuu ka soo jeedaa waddanka indiya, hooyadiina yamaniyad bay ahayd oo yaman bay ka soo jeedaa. shakiib isagu wuxuu isku tilmaamaa inuu yidhi Soomaaliya waana yahay. shakiib isku xaafad baanu ku dhalanay sidii furitaankii barnaamijkan idinku sheegay. shakiib aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in mar kale Hyderabad aan ku kulanno. shakiibow maystirida adduunyadan aadka isugu furmaysa adigaaba tusaale oo ah hindi iyo yamani iyo Soomaali. wallaahi run ahaantii aad waxaan ugu faraxsanahay aniga oo walaalkeen 35 sano oon kala maqnaan oo maanta isgarab fadhino. cabdisalaam waxaan kaga soo tegay isagoo maxaan miishaga isagoo 9 jira maantana waa adiga arkaysa waxaad moodaysaa in aanu ka yarahay orwa dadkiina garanayay muddo intee lag halka deganaaday markaa shaqada waxaan deganaa 35 sano 35 sano sideen ka soo baxay Soomaaliya markii aad timi adigu afindiga ma ku hadli jirtay waan ku hadli jiray afindiga Soomaaliya waan ku wada hadli jiray gartay marka wax dhibaato kalamaad kulmeen inaad halkan la qabto inkastoo ay Soomaalidu ku yareen يا هبين كي بان سكيه يسيري هاي سلا هدي ترى أنا سلا هدي ترى سومالي كانوا مدوبين هاي إن دايما كل صوبت هو مركب واحد يشكتها إن مركي سومالي ده هالك مركي هالك تبي يقول رئيس كيبو maxaa kuugu daraa xagga la qabsiga maadaama ahayd markii ugu horeysay xaggan timaado wallaahi walaalkayow gelin waddankiisa ku soo laabtay waxaan dhibaato la kulmay ma jirin laakiin Soomaalidii markii yimaadeen ayaan dhibaato kala kulmay qaar caaya waa tahay saku caaya ya qaar ilaa ana doonan jiray marka muuqaalkaagana Soomaali ku moodayay marka san wana aad ugu san odayga hindiga
هاي 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 waxyaalo badan aan ka sheegi karin xaggan dabadeedna marka dambe ay ogaadaan inaad nin Soomaali tahay ogaadaan bay alla hada naga raalino هاي 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 waxaad ka warantaa imika adigu gabadh hindiyada waad guursatay ما شاء الله laba caruur baad leedahay laba gabdhood adigu kuwaad dhashay sida kuwan Xuseen awoogu uu yahay ama uu dhalay ma yaqaanaan inaad Soomaaliya ka soo jeediyo Soomaaliya Soomaaliya way garanayaan ka soo horjeedo ee waxaan yaqaanaa ay iska waran nabad cunto inta soo meekanayaan هاي 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 waqtiga aan kula hadlaa Soomaaliga ayaan jirin gartay baan jirin waa school tuition quraankii bay ku wada bixiyeen ayaan ka haddana around the children ayay isku yimaadaan xaafadda